runtii waxaan aad number 1 ku bilaaban u mahadcelinaynaa Basuri walaalkeen xidigaha daadka iyo Somali Times oo markasta runtii u taagan sportiga Toronto inuu si hagar la'aana ku dish la'aana oo noocaanaha ugu hagar baxo marka waxaan ku leeyahay Basuri aad baa maasan tahay caawa maalin jamco ah waxaan joognaa maqaayada Ibi oo ku taala bartamaha magaalada Toronto waxaan runtii nala jooga walaalkeen qaaliya لاعب أنا قالن هو سجار أنا قالن يقول حافظي عن كود النمط هلوذاقي هذا واحد سكين ومتعناها هين ولكن فيصل محمد عبدي مهن فيصل محمد عبدي أو محمد علي أو رنتي لو يقانه فيصل خلدان يا ما قاعد خلدان للشيء نحن نغني يعني أنا صمد ورثه يوم بنغنيه مرجع فيصل وجران إنسان ولاعب كي وجد رنتي حرقين شري رنتي وحنا نوجي مد سفر قابن waxaan runtii hadda rabnaa caawa intaana wax walba bilaabin inaan faataxo u martaan waxa xanuunsan hooyadiis oo ah xaaskiisa hooyo u tahay marka waxaan iga codsanaa kulligeena faataxo u martaan inuu hooyo ilaahay caafimaad siiyo faatax billahi wada tahay sportigu hal aabe hal hooyo leeyahay marka waxay kamid tahay hooyooyinka hadda nool bay kamid tahay marka waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad iyo cimri dheer inuu ilaahay ayagana safarkay soo galeen asaga iyo xaaskiisaba inuu ilaahay khayr iyo caafimaad iyo ajar ugu bedelo caruurtooda ilaahay ka siiyo marka runtii cashadan waxay ahayd casho degdeg ah lowlaa uu waqti yar oo gaaban noogu yimid marka waxaan ku leenahay Faisal la soo dhawow waana ka xunnahay inaa dadka intaan in ka badan baan kugu yar laakiin time-ka noogu yar laakiin waxa caaw kula jooga waa odayaashii magaalada iyo waxgaradkii marka waxaan ku leeyahay soo dhawow waxaan rabaa inaan ku wareejiyo doctorkeena Maxamed Cali oo ah odayaasha magaalada midkaan soo dhaweynta Faisal Maxamed Cabdi muhiimadda barnaamijkan ay tahay inaan martin galino walaalkeen waa xaq islaami ah oo naga wada dhaxeeyo dadka walaalaha ah waxa aad u mahadsan oo kale dadkii soo qaban qaabiyay barnaamijkan quruxda badan iyo oo wanaagsan waxaan leenahay Faisal Maxamed Cabdi kusoo dhawaa magaalada Toronto waa xaq islaami ah oo nalagu leeyahay inaan ku martigelino waajibna ah ayadoo ay haddana ay sii dheer tahay waxaad ahayd nin maaragtay lejana oo Soomaaliya markaan joognay role model noo ahaa waana wax kale oo aan ku sii dari karo ma jiro walaalkeen Faisal Maxamed Cabdi oo martino ah Faisal Khaldaan isku xaafad ahayn muddo dheer aan isnaqaanay rafiiq dhowna nahay ku soo dhaweynayna magaalada Toronto maamada xanuunsan Allah caafiyo caafimaadkeeda taam Ilaahay u soo celiyo ay ku cibaadeysato cimri dheer iyo cibaado isku dhafan Ilaahay ha siiyo ehelkeeda iyo walaalaheed iyo ilmaheeda oo dhan duqda xaafadda ahayd iyadana ma aragtay ilaahay caafimaad sariic ah siiyo ayagana safar salaamaan leenahay berito ayagoo ku safar ku noqonayo guriyoodii maamadan anaga ka warqabeena insha Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan caawa halkan sugu nimid maqaayada Ibi restaurant ee magaalada Toronto inaan soo dhaweyno walaalkeen Faisal Maxamed Cabdi oo aad wada garanaysaan aniga Faisal waxaan u maleynayaa dharkan u hayn jiray markii doonay soo gaarnay ilaa Qaahira ilaa halkan ilaa reer Washington marka waxaan leeyahay Faisal ku soo dhawaaw magaaladaadii nagu cusbid waxaan kaloo ku darayaa in Ilaahay maamada hooyada xanuunsan caafimaad Ilaahay siiyo waxaan u soo duceynaa insha Allah Faisal waxaan ku leenahay magaaladaadii ku soo dhawow runtii waxa waaye maartay waa habeen xusuus fiican leh ma sha Allah in walaalkeen Faisal uu nala joogo uu noo yimaad oo maartay wada joogno waxyaabaha walaaltinimada maartay qiimaha u yeelan waxa kamida in qof walaalka markuu ku yimaado xusuusato weynaysid oo maartay u soo baxdid oo aad aragtaan oo kulankan oo kale maartay sidoo kale isugu arko waxay ka turjumaysaa qiimaha iyo maartay walaaltinimada aan u hayno walaalkan Faisal marka Faisal mar labaad soo dhawow aniga waxa waaye Faisal si gooni ah saaxiibkiisinahay marka ma sha Allah oo ku faraxsanahay in maartay inteena dhan aan soo baxnay in ka badan soo bixray laakiin asagana mashquul ahaa
maaragtay arrinta u yimid oo arrin family ah maaragtay annagana waxaa waaye maasha allah ma aanan helin waqti aan isu gaarsiino marka insha allah Faysal waxaan leenahay soo dhawo intaan in ka badan aan mudan tahay maaragtay maamadana allah caafiyo marka loo duceeyo maamada waa alxamdulillah sidii hore waa ka fiican tahay caafimaadkeeda caafimaad taam allah ka dhigo mar labaad iyo mar saddexaad walaalkeen Faysal soo dhawaaw maaragtay intaan in ka badan waa naga mudan tahay salaamaya dhammaan walaalaha ka soo qayb galay xafladan oo aan ugu talagalnay walaalkeen Faysal Maxamed Cabdi oo nooga yimid maxaa la yiraahdaa magaalada Washington DC Faysal waxaan leenahay ku soo dhawow magaalada Toronto magaaladaadi waaye waxaan u maleynayaa dadka ugu aqoonta dheer inaan ka mid ahay Faysal dadka yaqaan waxaan u maleynayaa haddaan qiyaaso waa 70 meelahaas inaan isnaqaan Faysal aan u maleynayaa marna aan isku naadan noqono juniorka ugu wada dhalin labadeena Faysal walaalkiis hooyo Ilaahay ha caafiyo muraadka u timideen Ilaahay idin fudaadiyo walaashay marna dumashadii waxaan u maleynayaa hadda waan ugu soo kadisa ma ahane haddii aad yani waqti oo dheer noo soo qaadan lahayd inaan barnaamijka weyn ku qaban lahayn haddii aan nahay odayaasha sportska magaalada waxaan qiyaasayaa mahad gaara waxaa leh Busuri xidiga oo mar walba sidoo sheegay Bakin yani ka qayb qaata yani horumarinta sportska magaaladan waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha annaga kooxdeena Mr Bakin Abdirashiid oo mar walba u taagan yani maxaa la yiraahdaa carruurta Soomaaliyeed sidii yani loo gaarsiin lahaa maxaa la yiraahdaa horumar loo gaarsiin lahaa mar walba u taagan waxaan filayaa amalina yaa kaloo dhiman mudan Anwar oo asna kamid ah yani odayaasha magaaladan ilmaha u istaagay oo alxamdulillah haddana yani gaarsiiyay heer ay ka qayb galaan macnaha inay kamid noqdaan jaamacado ku helay scholarships ku helay asna oo mahad celinayna walaalkeen Faysal waxaan ku dheelan marka adaan ambassador nooga ah Washington nagu wada salaan wallahi xagga degan insha Allah hadii la idmo waxaan u mahad celinaynaa special thanks to Busuri marka Faysal brother Ilaahay horto au naxariisto Ilaahay caafimaad siiyo maamada wadaqana xadiis ayaa jiro Allah 3 bil ka hor aan bartay xadiiskaas oo dhaay Rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadaad ziyaarataan qof xanuunsan ما سمعنا أنا جوهر على عضل اللي قلت له لكن ولي ما ما نفسه جوهر رئيسه أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه طبعا الحديث كان very important هذا محمد التكتيد أكتر حديث كان حصلناه إنه هذا كان قدرت يصير وعافية على جهة مركز حكتين هاد ما هذا لدرجة عشان سوق بنقابي قدومي بكن madaxkaya iyo Xarees welcome Faysal again waxaan horta hore waxaan u mahad celinayaa halkan caas u keenay waxaan kaloo mahad celinayaa qabaqaamada raggii waxaan soo qabtay walaalkii Busuri xidigaha sida loo sheegayba markasta ka shaqeeya arrimaha sportska anigu uma imaan inaan ciyaaro waxaan u maslaan sodadii xanuunsanaysa inaan soo arko caawa rag Yusuf kamid ah kala raacay quraan baan ku soo akhrinay islaanta caafimaadkeeda wanaagsan yahay ilaahay waxaan uga baryayaa inuu caafimaadkeeda tamaam uu siiyo waxaan kaloo jeclahay aan aad u happy ugu ahay ragaan arki jirin Axmed Joon ugu horeeyo oo muddo sugaa dambeysay inaan xalay kubad la ciyaaray marka waxaan oran lahaa ragga meesha fadhiya Bakin Maxamed Anwar Yusuf Joof Khalid Arais صاحبك ديناي شرماكه بزوري حرسه إن إلهي حوشنا قشين خير كذا نسيو كوبدين تلقين أنا كم تلقين وحلاست من ذبايعيد مركا أنت إن كون أحسن أحمد ولا قديس أنت إن كون أحسن ولا قبان كره ما تشرتو إنه يهو إلهي خير هذين كسي واحد قبتين وحن واحد سبورتيس وحوالي التنماء وحلو قدرنا سبورت سينما مركا عندنا إن كوض الشقينا ونلاقي سبورت سينما ضنا waxaan special u jeedinayaa mahad gooniya nimanka Soomaaliyeed Toronto degan sportska ciyaalka ku hawlan oo hadda nagala jooga Anwar oo aad iyo aad joodi badan galiya sida la sheegay ciyaalkii wadada barsiga qaar scholarship ay heleen wax u baahan dayasho weeye in lagu daydo Anwar hawsha halka ka wad kala aad waa kala kulmaysa Soomaali baan nahay laakiin yahow ilmahaas aad wax qaban
ilin subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaystay weyn si kale kugu soo sintaa ilin subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoo si qorshaysay weyn si kale kugu soo sintaa sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sidaynoo hayn shalay samaantii wada jirkii sigsagalay baa jiray maxaa saxmilay qaldamay sigsagalay baa jiray maxaa saxmilay qaldamay jacaylkani samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriyey balsaakana waa jimcay ubuniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkani samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriyey balsaakana waa jimcay ubuniya u sameeya salo malaha saar baa haye waliyo saar waliyo wayraxa waliyo saar waliyo wayraxa waliyo saar waliyo